xalqadii shanaad ee taxanaha kun habeen iyo habeen. haddii ay tahay markii koowaad ee aad channelkan soo booqanayso, fadlan subscribe ka taabo, like-tana saar, gambaleelkana daaro si ay kusoo gaadhaan muuqaaladeeda cusub, anigana ay dhiirigelin igu noqoto. iminkana daawasho wacan. habeenkii afaraad markii dib la isugu yimi ayay Shahrazad sheekadii dib sii bilowday, iyadoo tiri markaas ayuu jinigii inta uu qiiq iska dhigay sanduuqii ku uruuray. markuu wada galay ayuu odaygiina kor kaga xidhay, isaga oo shaambadiina ku qabtay. kolkaasuu odaygii jinigii ku yidhi, cifriidow, dhimasho noocee ah ayaad doonaysaa? badda ayaan mar labaad kugu tuurayaaye. cifriidkii markuu hadalkaa maqlay, ogaadayna inuu sanduuqii mar kale lagu xidhay, ayuu yidhi, walaalo waan ku baryaaya, badda haygu celin. odaygii ayaa yidhi, imise ayaan amba ku tuugay oo aad iga diiday, weliba anigoo meeshan aad ku jirto kumanaan sana kaa soo saaray, ayaad abaalkayga ka dhigtay inaad i disho. cifriidkii oo ooyaya ayaa yidhi, iga fur walaalo, waan ku wanaajin doonaa, waxaad rabtana waan kuu samaynayaa. markaas ayuu odaygii yidhi, been ayaad ii sheegaysaa, waxaanad weliba tahay jini nacladi ku dhacday. hana filanin inaan halkan kaa furo, waxaanad ogaataa inaan anigii adigu la mid nahay, sidii boqorkii la odhan jiray Nooyaan iyo ninkii xaakiimka ahaa ee la odhan jiray Rooyaan. cifriidkii ayaa yidhi, oo maxay ahaayeen boqor Yoonaan iyo xaakim Rooyaan? maxayna ahayd qisadoodu? markaas ayuu odaygii yidhi, ma waxaad rabtaa inaad ogaato sheekadii boqor Yoonaan iyo xaakim Rooyaan? cifriidkii oo madaxa ruuxaya ayaa yidhi, ahey, bal ii sheeg muxuu ahaa xaalkooda? odaygii kalluumaysatada ahaa wuxuu hadalka ku bilaabay, waxaad ogaataa cifriidihow inuu waa hore oo muddo aad u fog laga joogo uu jiray boqor u talin jiray magaalooyin ka mid ah dhulka Faris iyo dhulka Roomaanka, waxaana la dhihi jiray boqor Yoonaan. wuxuu ahaa boqor hanti iyo ciidan aad u xoog badan bale, waxaana jirkiisa ku yaalay oo uu lahaa baras. baraskaas oo ay daaweyn waayeen dhammaan dhakhaatiirtii isku dayday inay daaweeyaan, waxna way ka tari waayeen dawooyinkii iyo dhammaan wax walba oo la siiyey. boqorkuna waxa uu dhibsaday oo uu qaati bilaahi ka taagnaa cudurkan baraska ah ee ku dhacay. iyada oo xaalku sidaas yahay ayaa waxaa magaaladii soo galay nin xikmad badan aadna u da'weynaa oo la odhan jiray xakiim Rooyaan. odaygaasi waxa uu aqoon u lahaa kutubtii Giriiga, Faariska, Roomaanka, Carabiga iyo Saryaaniyada. sidoo kale xakiim Rooyaan wuxuu yaqaanay cilmiga caafimaadka, kan xidigaha iyo sida looga faa'iidaystaba. waxa kale oo uu yaqaanay sida dadka loogu daweeyo daaweynta dabiiciga ah ee dhirta, isaga oo sidoo kalena ahaa faylasuuq. sidaas darteed ayaa loo yidhi xakiim Rooyaan. markuu muddo magaalada joogay ayuu maqlay arrinta boqorka iyo inuu baras qabo, wax daawo ahna loo waayey. markaas ayuu xakiim Rooyaan u tegay boqorkii, waxa uuna ku yidhi, boqorow, waxaan awoodaa inaan ku daweeyo anigoon wax dawo ah ku siinin, wax dufan ahna ku marinin. boqorkii arrintaas aad ayuu la yaabay, waxa uuna yidhi, haddii aad sidaa sheegayso aad samayso, waxaan ku siin doonaa inta noloshaada ka dhiman wixii aad ku noolaan lahayd, waana ku sharfi doonaa, waxaadna markasta ii ahaan doontaa qofka iigu dhow. xakiim Rooyaan waxa uu yidhi, waxaan rabaa boqorow in qasriga taandho la iga dhiso, adiguna adiga oo berri diyaarsan waxaad timaadaa barxadda beertaada. markii taandhadii loo dhisay ayuu meesha waxa uu keenay kubad aad u yar iyo ul, isaga oo daawooyin kala nooc ah kubaddii soo mariyey. subaxii markii la gaaray ayaa waxaa yimi boqorkii oo ay la socdaan madaxdii dowladdiisa sida wasiiradiisii, saraakiishii ciidanka, abaduulayaashii iyo dadweyne kale oo badan. kolkaas ayuu xakiim Rooyaan u sheegay boqorka inuu u shaqaabsado oo uu kubadda ku garaaco inta awooddiisa ah, maanta oo dhan uu sidaas sameeyo. marka uu dhidid ka yimaado dhiiguna uu kaco, waxa uu u sheegay boqorka inuu si degdeg ah musqusha u aado oo uu halkaa ku qubaysto kadibna uu seexdo. boqorkii sidii ayuu sameeyey, sidii kubaddii marba intuu awooddiisa ahayd u tuurayay ayuu dhidid aad u badani ka yimid. wuxuuna xakiimkii boqorka u ishaaray inuu musqusha aado, sidii ayuuna ku aaday, waanu soo qubaystay isaga oo kadib seexday ilaahay waa berigii. subaxii markii uu soo kacay boqorkii, muraayadda ayuu isku fiiriyey, balse tan cajiibka ahi waxa ay noqotay inuu boqorkii noqday qof saliim ah oo aan haba yaratay wax barasa lahayn. boqorkii arrintaas aad ayuu ugu farxay, wuxuuna u yeedhay xakiimkii isaga oo soo dhowaystay, wuxuuna siiyey hadiyado qaali ah iyo xoolo qiimo badan. wixii maalintaas ka dambeeyey, markasta oo uu xakiimka boqorka u tago, waxa uu siin jiray hadiyado aad u qaali ah oo aanu siin jirin xataa madaxda dowladdiisa u sarraysa. nimco kasta nusqaanteeda lehe, arrinkaasi waxa uu dhibay oo ka xumaaday mid ka mid ah wasiiradii boqorka, kaas oo dareemay in boqorku dhanka xakiimka u janjeero, isaga oo aad uga masayray. sidaas darteed waxa uu go'aansaday inuu xakiimka kaba takhalluso. boqorkii ayuu u tegey, waxa uuna ku yidhi, boqorkaygiiyow, adigu waxaad tahay qof dadka wanaajiya, inaan kuu naseexeeyaana waa igu waajib. sidaas darteed arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo, haddaad fasax ii siiso waan kuu sheegayaa. markaas ayuu boqorkii oo hadalkiisa dhibsanayaa yidhi, waa maxay nasteexadanaad waddaa? wasiirkii waxa uu yidhi, boqorow, dadkii hore waxay ku mahmaahi jireen qofka waxa taagan aan garani waxa soo socda ma garto. waxaanan dareemayaa inuu boqorku cadowgiisa wanaajinayo, soona dhawaysanayo, halkii ay ka ahayd inuu ka takhalluso, aniguna waan ku cabsanayaa. markaas ayuu boqorkii isagoo aad u xanaaqay yidhi, waa kuma qofka cadowga ii ah ayaan soo dhawaystay aan wanaajiyey. wasiirkii waxa uu yidhi, boqorkaygiiyow, hordada ka kac, anigu waxaan ka hadlayaa xakiim Rooyaan. markaas ayuu boqorkii yidhi,
miyaad waalatay xakiimkan waa ninkii idaweeyey wuxuuna ii qabtay waxay dadka dhan ay qaban kari waayeen waana kuu jeedaa oo waad ka masaysan tahay iimaan yeelo oo odayga miskiinka ah faraha ka qaad mise waxa aad rabtaa inaan dilo xakiimka kadibna aan ka shalleeyo siduu u shalleeyey boqor Sindiyaad markuu iska dilay shimbirtiisii markaas ayuu wasiirka yidhi oo sidee ku dhacday sheekadaas boqorow markay sheekadu halkaas maraysay ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaadhay wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa habeenkii shanaad markii la gaadhay ee sheekada halkii kasii waday waxa ayna tiri markuu wasiirkii weydiiyey sheekadii boqor Sindiyaad iyo shimbirtiisii ayuu boqorkii hadalka ku bilaabay waxaa jiray boqor ka mid ah boqoradii reer Faris kaas oo aad u jeclaa safarka iyo ugaarsiga waxa kale oo uu jeclaa tamashlaynta iyo dalxiiska boqorkaasi waxa uu lahaa shimbir uu aad u jeclaa meel kastana u raaci jirtay maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday in boqorkii ugaarsi u baxay kadibna waxay arkeen deero boqorkii ayaa askartiisii ku yidhi afarta dhinac laga maro deerada qofkay dhinaciisa ka fogatana ha ogaado inaan kurta ka jarayo deeradii ayaa la hareereeyey kadibna waxaa dhacday inay deeradii dhinaca boqorka aaday oo ay halka ka baxsatay markaas ayay askartii isfiirfiiriyeen oo gunuunsan boqorkii wasiiradiisii ayuu isugu yeedhay waxa uuna weydiiyey maxay leeyihiin askartan ay la gunuunsayaan markaas ayuu wasiiradiisa mid ka mid ah yidhi boqor waxay leeyihiin boqorku waxa uu yidhi qofka ay deeradu dhinaciisa ka baxdo kurka ayaa laga jarayaa deeradiina dhinaca boqorka ayay ka baxday markay sidaa tahay ayuu boqorka yidhi waxa igu ballan ah inaan deeradaas soo qabto oo aan keeno kadibna isagii faraskiisa iyo shimbirtiisiiba way baxeen boqorkii waxa uu socdaba waxa uu arkay deeradii waxa uuna ku sii daayay shimbirtiisii taas oo iyaduna indhaha kaga dhigtay deeradii si uu boqorku u qabto markaas ayuu boqorkii deeradii qabtay oo inta uu qalay oo uu maqaarsiibay ayuu soo qaatay maqaarkeedii iyo madaxeediiba waqtigu waxa uu ahaa mid aad u kulul abbaar markay socdeen ayay oon dareemeen oo haraadeen markaas ayuu boqorku hareeraha fiiriyey wuxuuna arkay geed ay biyo ka hoos burqanayaan boqorkii weysadiisii inta uu la soo baxay ayuu biyihii ka shubtay wuxuuna damca inuu cabo hase yeeshee waxaa ku soo booday shimbirkii oo ka daadiyey markaas ayuu boqorkii is yidhi isaga ayaa aad u amane balse biyihii ayuu mar kale ku soo shubay weysadii oo uu shimbirkii hoos dhigay balse shimbirkii mar kale ayuu biyihii daadiyey boqorkii oo yaaban ayaa mar saddexaad soo shubay oo faraskii siiyey balse waxa mar kale daadiyey shimbirkii markaas ayuu boqorkii aad u xanaaqay oo shimbirkii ku yidhi wallaahi haddaad mar kale biyaha daadiso seerta ayaan kugu dilaya waxuuna weysadii ku soo shubay biyihii isagoo cabis leh haddana mar afaraad ayuu shimbirkii biyihii daadiyey markaas ayuu boqorkii xanaaqay oo intuu shimbirkiisii seeftii ku dhuftay oo dhulka ku dhacay balse boqorkii waxa uu arkay shimbirkii oo madaxa wax uga ishaaraya isaga oo naftu ay kasii baxayso sida inuu leeyahay oo kale geedka korkiisa fiiri markaas ayuu boqorkii geedka korkiisa fiiri mise waxaaba saaran abeeso aad u qaro weyn waxaan shubmayaana biyo may ahayne sunteedii ayay ahaayeen markaas ayuu boqorkii aad uga shalleeyey iskana ooyey shimbirkiina halkii ayuu ku dhintay markaa wasiiruma waxa aad rabtaa inaan noqdo sidii boqorkaas oo aan dilo ninkii i daweeyey hadhowna aan ka shalleeyo kolkaas ayuu wasiirkii yidhi boqorkaygiiow aniga hadal kasta oo aan ku dhaho inuu sax yahay gadaal ayaad ka ogaan doontaa haddii aad hadalkayga iga yeesho waxaa laga yaabaa inaad badbaaddo balse haddaad taladeeda iga diiddo oo aanad ka takhallusin xakiim rooyaan waxaad u halaagsami doontaa sidii uu halaagsami gaadhay ina boqorkii ugaarsiga jeclaa boqor yoonaan ayaa yidhi oo maxay ahayd sheekadiina boqorkaasi markaas ayuu wasiirkii hadalkiisa ku bilaabay boqorow waxa waa hore jirtay boqortooyo boqorka ka taliyaana waxa uu dhalay wiil aad ugaarsiga u jeclaa maalinkii dambe ayuu ugaarsi u baxay kadibna wuu lumay oo waddo kale ayuu qaaday isagoo jidka keligii maraaya ayuu arkay gabadh dhalinyaro ah oo jidka keligeed fadhida markaas ayuu waraystay waxayna u sheegtay inay la socotay safar qoyskeed ahaa oo ayna ka luntay una baahan tahay inuu caawiyo markuu hadalkeeda maqlay ayuu naxariis dareemay waxa uuna go'aansaday inuu caawiyo waanu sii waday ilaa ay ka soo gaadheen meel xeeb ah oo bad u dhow markaas ayay ku tidhi halkan wax yar igu sug dan aan leeyahay ayaan soo gudanayaay kadib way ka tagtay laakiin iyadoo aan ogeyn ayuu dabagalay waxa uu arkay iyadoo carruur la joogta oo ku leh waan idiin imi hooyo waxaanan idiin keenay wiil aad u cayilan markii uu amiirkii hadalkii maqlay ayuu aad u naxay naftiisiina u baqay isla markiiba faraskiisii ayuu ku dhacay meeshiina degdeg ayuu uga soo cararay sidaas ayuuna ku badbaaday markaa boqorow waxaan ka baqayaa in sidii wiilka amiirka ahaa ee gabadha jaariyadda dadcunka ahayd isiri caawi uu u halaagsami gaadhay inuu aadna xakiim rooyaan maanta sidaas oo kale kuu halligo waxaadna ogaataa in ninkani maanta shay aad qabatay haddii uu kugu daweeyey uu berrina shay aad urisay kugu dili karo waxaana laga yaabaa inuu yahay jaasuus ay cadowgaaga kuu soo direen si uu kuu dawo ee anigu waan kuu nastaaxaynaya ka takhallus markaas ayuu boqor yoonaan yidhi wallaahi waa runtaa haddii maanta shay aan taabtay uu igu daaweeyey waxaa macquul ah inuu berrina shay aan uriyey igu dilo waxaana laga yaabaa sidaas sheegtay inuu jaasuus yahay kolkaas ayuu boqor yoonaan ku yidhi wasiirkiisii maxaa tala ah oo aynu imika ku dhaqaaqna wasiirkii waxa uu jawaabay isla waqtigan la joogo qof u dir una sheeg inuu kugu yimaado marka uu ku yimaado kurka ka goo sharkiisana iska xidh ilaan biyo intaanay soo gaadhin ayaa la iska moosaayay boqorkii waxa uu diray qaar askartiisa ka mid ah wayna keeneen xakiimkii isaga oo faraxsan oo warmoogska ah markii la keenay ayuu boqor yoonaan yidhi ma og tahay sababta halkan hadda lagu keenay xakiim rooyaan waxa uu yidhi qaybul qaybka alle unbaa og
boqorkii ayaa ugu jawaabay oo ku yidhi waxaa halkan lagu keenay in lagu dilo oo weliba lagu daldalo. xakim royan ayaa yaabay markuu hadalkaa maqlay, wuxuuna yidhi oo maxaan galabsaday oo sidaas iigu dilaysaa? boqor yoona waxa uu yidhi waxa ay soo gaadhay inaad jaasuus tahay, halkanna aad u timid aniga i disho, waana igu qasab inaan ku dilo intaanad i dilin. askartiisana wuxuu amar ku siiyey inay isla goobta qoorta kaga gooyaan. markaas ayuu odayga xakiimka ahaa ku yidhi boqorkii, boqorow iska kaydaa, alla ayaan ku dayn doonee. waxa uuna u baryey sidaan anigu kuu baryey cifriid yahow. kolkaas ayuu boqor yoonaan yidhi, anigu kaama aamin qabo, waayo waxaad shalay igu daaweysay waxaan qabtay, waxaana macquul ah inaad berrina igu disho waxaan ursaday, markaa waa inaan ku dilaa. xakim royan ayaa yidhi, ma sidan ayaad iigu abaal marinaysaa, wanaaggiina xumaan ayaad iigu beddelaysaa? hase yeeshee boqorkii go'aankiisii ayuu ku adkaystay. markuu yaqiinsaday xakim royan in la dilaya ayuu yidhi, waxaan kaa codsanayaa intaanan i dilin ka hor inaad ii ogolaato inaan gurigeyga ku laabto oo ehelkeyga soo macasalaameeyo una soo dardaarmo, sidoo kalena aan soo hiibeeyo kutubteyda uu cilmigu ka buuxo. waxaana ku jira kitaab aad u fiican khaasna ii ah, kaasoo aan adiga si gaar ah ugu soo hadiidin doono maadaama uu kitaab muhiima yahay. markaas ayuu boqorkii yidhi, waa maxay kitaabka muhiimka ah? xakiimkii waxa uu yidhi, waxaa ku jira oo aad ka helaysaa waxyaaba aanan halkan kusoo koobi karaynin iyo sila aad u badan. markaad aniga madaxa iga goyso oo aad akhrido 3 bog oo ka mid ah baalasha kitaabkaas, mid kasta 3 sadar oo ka mid ah, madaxaygu wuu kula hadli doonaa, isaga ayaana kaaga jawaabi doonaa su'aal kasta oo aad isweydiiso. boqor yoonaan ayaa aad u yaabay, wuuna rumaysan waayay hadalka xakim royan, isagoo uu ku yidhi, haddaan madaxa kaa gooyo miyuu awood u sii yeelanaya inuu ila sii hadlo madaxaagu? markaas ayuu xakiimkii yidhi, haa boqorow, waa arrin cajiiba soo ma ahan? kadib ayaa xakiimkii loo waday si uu reerkiisii u soo sagootiyo. maalintii ku xigtay oo ahayd maalintii la dili lahaa xakiimkii ayaa isaga oo la wada la keenay, waxaana yimi dhammaan madaxdii dowladdiisa oo intooda badan ay ka xumaayeen in ninkaa boqorka abaalka u galay la dilo. xakiimkiiba wuxuu soo hordhigay boqorkii kitaabkii, waxa uuna dalbaday in loo keeno baaquli ama saxan weyn. markaas ayuu boqorkii u dhiibay kitaabkii, waxa uuna ku yidhi, markaad madaxa iga goyso ku rid weelkan, su'aasha aad doontana wuu kaaga jawaabaya madaxu. kolkaas ayuu boqor yoonaan soo qabtay kitaabkii wuuna kala furay, laakiin warqadihiisii aad ayay isugu dheganaayeen, sidaas darteed ayuu gacantiisa candhuuftiisa mariyey isaga oo ku kala bixinaya warqadihii isku dheganaaya kitaabka. markuu marayay ilaa 6 bog oo kitaabkii ka mid ah oo dhammaantood ay ahaayeen waraaqo madhan, ayuu boqorkii dareemay inuu tabardarreeyey. kursigii uu ku fadhiyey ayuu ka dhacay oo dhulka ayuu ku dhacay. sababta ma taqaanaa cifriid yahow? sababtu waxay ahayd kitaabka uu xakim royan meesha keenay waxa uu ahaa kitaab samaysan. boqorkuna markuu gacantiisa afka gelinayay ee uu candhuufta marinayay ayay suntu jirkiisa gashay, isla goobtii ayuuna ku dhintay. markaa cifriid yahow, boqorkaasi hadduu xakiimka faraha ka qaadi lahaa u badbaadi lahaa, laakiin wuu diiday inuu faraha ka qaado, isaga ayaana dhintay. markii sheekadu halkaas maraysay ayay shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay, wayna aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa. halkaas ayaynu ku soo koobaynaa xalqadeena maanta. inta xalqadda xigta aynu ku kulmayno waxaan iskaga tegayaa nabaday.